الله وبركاته. أصحابتينا marka hore soo dhawaada fadlan hadda ku cusubtahay channelka subscribe saar sidoo kale hadda ka heshay video like noo saar commentigaagana dhiirigelin ayay noo tahay maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno cashar muhiim ah saa u jeedin inta waxaa saaran labo application WhatsApp-ka caadiga ah iyo Braille Space oo CC4-bit sabarta marka muhiimada ujeedada maanta aan leeyahay waa WhatsApp-ka marka app-kan kale oo Braille Space-ka ah kan waxaa ka rabaa waxaan u soo saarto waxay tahay ana WhatsApp isticmaala marka WhatsApp-ka inaan wax ka sameeyo ama wax idinka tuso aaro waa Braille Space-ka midka kale caadiga ah account-iga saxda ah marka midkan Braille Space-ka waxaa waaye inta application kugu jirto ayuu labo kaaga dhigayaa marka WhatsApp labaad oo inta ku jira ayaa waxaa rabaa maanta inaan wax idinka tuso waana kana marka waxaa rabaa maanta inaan ka hadlo cashar muhiim ah sidee u saarataa waxaan idhahan starter sidee loo saartaa two-step verification waa passcode oo aad muhiim kuga ah xitaa haddii uu qof kale ka qaato isku dayo inuu jabsado WhatsApp-kaada ama verification code-kaada qofkan wuxuu ku qasbanaa inuu u baahdo two-step verification-ka marka qaab noocay ayaa ugu xiran kartaa two-step verification-ka ila socda hadda ayaa dib u laabanaya waxaa gelayaa inta waxaan ku qoray qaybta search-ga Braille Space anigu igu jira haddaadan haysanin waa la soo degi kartaa Braille Space waa kana Braille Space midkaas kale ku siina marka isla markii wuxuu ku geenaa marka inta application ay kugu jirta ayuu labo kaaga dhigayaa waxaa ka mid ah waa kan Telegram, Facebook, Viber, Messenger, WhatsApp marka ujeedada aan leeyahay waa WhatsApp ayaa furanaya marka WhatsApp-ka starting ayuu leeyahay waa ujeedin uu soo kacaya bas marka sidaan oo isu keenaa marka muhiimadeena koowaad waxaa waaye ama casharkeena maanta sidee WhatsApp-kaada ugu xiran kartaa ama ugu darsan kartaa two-step verification sidee WhatsApp-keena ugu xiran karnaa two-step verification waxay ka caawinaysaa wax badan lacala qof hadduu isku dayo inuu ka jabso WhatsApp-kaada qofkaas wuxuu qasban yahay koodka oo lambar koodka caadiga hadduu helo oo taleefankaaga uu si qarsoodi ama si jugnimo uu kaga qaado koodka haddana ay kugu xiran tahay two-step verification wuu ku qasban yahay ilaa waxaa WhatsApp-ka haddii hal mar la delete gareeyo haddana loo soo celiyo oo ay kugu xirneed markii hore two-step verification-ka qofkaas wuxuu ku qasbanaanaa inuu helo two-step verification-ka marka qaab noocee ayaad ugu xiran kartaa two-step verification marka waxaa tegaynaa haddii soo laabano waxaa tegaynaa saddexdaas dhibcood meesha ku qoran tahay markaas hadii waxaa tegaynaa setting markaa furtid waxaa kasii tegaysaa account markaa tagtid waxaa kuu soo baxayo two-step verification waa kana ujeediina umaleynaa two-step verification marka wuxuu ku leeyahay for area security enable ku leeyahay two-step verification which will require a PIN or registering your phone number with WhatsApp again wuxuu ku leeyahay markastoo WhatsApp-kaada aad delete gareysid haddana aad rabto inaad dib u soo ceshato wuu ku weydiinayo ku leeyahay PIN ayaan gashanaysaa ilaa 4 ama 5 lambar ku xirana marka enable dhahe marka wuxuu ku leeyahay 6 digit PIN geli 6 password oo ku qaasa aan hadda waa geli waa ku celin haddana confirm ku leeyahay marka wuxuu ku leeyahay haddana email-kaada ku dar marka email-kaada ku daray taasna muhiim ay ku tahay xitaa PIN-ka haddaa iloodid midkan ayaa research ku dhihi kartaa haddaa rabtidna wuxuu ku leeyahay escape iska dheh marka haddaadan u baahnayn escape waa dhihi kartaa haddaa rabtidna gmail-kaada waa ku dari kartaa marka dhima laha gmail-ka ay ku daraani markaas kadib waxaa dhehe next dhehe gmail-ka hadda wuxuu ku leeyahay confirm garay markaa ku celisid waxaa dhehe save dhehe marka
apply uu leeyahay waa kaas wuxuu leeyahay marka two step verification is enabled laga bilaabo maanta telefonkaada whatsappkaada waa safe waaye wuu ku xiran yahay lacala aad xitaa barooway inaad telefonkaada kan asigoo inta ku shaqeynaya whatsappkaada waxaa sameynaya telefonkaada geli lambarkaada meesha ku kici koodka geli caadi wuxuu ku weydiinaa two step verification waxaa wanaynaa in casharka ila fahanteen waa kaasa disabled hadaa rabtid change pin hadaa rabtid inaad bedeshid meeshaas ka bedele waxaa wanaynaa ila fahanteen fadlan subscribe anaga iloobeen sidoo kale video hadaa ka heshay like noo saar salaamu allaahi calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.